ku soo dhawow koorsada kobci ganacsigaaga. Koorsadan waa mid lagu horumarinayo xirfadda ganacsade waliba oo doonaya inuu kobciyo ganacsigiisa iyadoo laga eegayo dhinacyo badan. Waxay u qaybsan tahay qaybo ay ku jiraan cashiro gaagaaban oo loo naqshadeeyay sidii aadan ugu daali lahayn. Waxaa ka mid ah inaad baratid sidii aad u horumarin lahayd naftaada marka hore si aad u horumarisid kadibna ganacsigaaga. Tusaale, bedelidda aragtidaada ku aadan ganacsiga, u maaraynta waqtiga si wax ku ool ah iyo ka guulaysiga cabsida tirada badan ee uu dareemo qofka marka uu rabo in uu qaado tallaabo ku aadan horumarinta ganacsigiisa. Number 1 waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah positive attitude inaad leedahay. Aragtidaada nolosha inay noqoto mid positive ah. qof negative ah oo isagii oo dhan xiran oo aaminsan inay mugdi noloshu tahay, dagaalo sokeey ay jiraan, xaasidiintu ay badan yihiin, bangiyadu ay dadka dhacayaan, dadka oo dhan qowleyste ay yihiin, gebigiisba u arka dadka intiisa kale oo dhan inay wada negative yihiin, waxba kama soo baxayo. Waxaa si nidaamsan loogu gudbayaa kadib sidii aad u fahmi lahayd heerarka kala duwan ee ay tahay inuu maro ganacsigaaga si uu u kobco, iyo tallaabooyinkii aad qaadi lahayd si ay kugu soo biiraan shaqaale kaa caawiya horumarinta ganacsigaaga maadaama aadan keligaa ku filnayn. Waxaa ku xigi doona cashiro kale oo muhiim u ah sare u qaadista iibka ganacsigaaga sida barashada dibaaladda iibka iyo hanaanka uu maro iibka guulaysta, iyo ugu dambeyntii fahmidda sida loo maareeyo maaliyadda ganacsigaaga iyo qaybo kale oo tiro badan oo dhammaantood sare u qaadaya diyaargarowgaaga kobcinta ganacsigaaga. Ka faa'iidaysi wacan gudaha ayaa inoo ballana insha Allah.